السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تمانتا waxaa duubaynaa vlog waxa weeye hadan xaafada ka baxnay nala socda na soo raac asxaabta magaalada Garowe waa ka soo baxnay hadda waxaan joognaa sabka oo shidaal ka qaadanayna waa wada soconaynaa meesha u socono la idin sheegi maayo laakiin waa ogaan doontaan na soo raac ku jirnaa safarkeeni waxa haatan maraynaa tuulada 22aad oo 22 kilomitir u jirta caasimadda wali ma dhawin na soo raac
maanta wali safarkayagii baa ku guda jirnaa hadda waxaan maraynaa deegaanka Sin Ujiif ee gobolka Nugaal safarka waxaan ugu weheliya team wariyaal ah Maxamed Saalax oo hadda garabkayga taagan oo safarka isagana ugu weheliya bal hayay Suweys waa mahadsan tahay waana ku dhawahay channelkaaga safar qurux badan weeye waxaan rajeynaynaa inaan nabad ku tagno nabadna ku soo noqono dhul badan baa soo marnay halkana waxa la dhahaa Sin Ujiif sintaada isaga seexan kartaa waa meel qabow oo dhir badan si fiican marka waa de adigu waxa weeye jiilkii dhammaantiin oo hadda waxa weeye leediba dhigi karo waa inaan oday iyo nin weyn helnaayo maartay deegaanka Sin Ujiif iyo arrimaha Sin Ujiif waxyaalaha ay meesha magacay kula baxday de waxa weeye qof waa ay aragay u baahan nooga warrama waa runta qof waa ay aragay u baahan tahay waliba reer Nugaaleeda hadda waxaan imaadnay Salaama waa meel ugu qadeeyo waxaan la socda shareeca la socda waxa way meeshan magaceed meeshan waxa la dhahaa Salaama waxay dhinaca bari ka xigtaa tuulada la yiraahdo Sin Ujiif waa meel inta badan dadka rakaabka iyo baabuurta safarka ay istaagaan oo ay ka qadeeyaan waana meel inta aad macaan aad baan xiiseeyaa runtii markaan safarka ahay meesha koowaad ee ku soo dhacdaa waxa weeye needayda in halka tago aan ka qadeeyo haddeer laftirkeeda safar baaha xalay ma casheen saaka ma quraacan waxaan sugaya meeshan cunadeeda marka hadda raayo inaan jaro anaguna waa kula dhadhaminaynaa waa mahadsantiin soo raacay idinkuna nala qadeey sideen هذا ما مقالة أو قديم سمين ميل أبوه أو قديم أنا شو قديم ما شاء الله إلهي دي كنت قبوبة لكن يفرق إذا وحوي عبارنا إذا الله الصنوات شعران
tahay akhyaarta daawanaysa maanta dhawaa soo soconay safar baan soo galnay guntii iyo gabagabadii waxaan niri degmada Dangoroyo ee gobolka Nugaal waxa halkan ka dhici doona garoonkan oo ciyaar kulul ku dhex mari doonta hadii Allah wadana idmo wariyaasha gobolka Nugaal gaar ahaan degmada Garowe iyo dhalinyarada degmada Dangoroyo haddaba waxaan rabaa qayb kamid ah maxaan ku raadayay dhalinyarada halkan ku ciyaaraysa bal inaad dareenkooda ku aadan ciyaarta galabta halkan ku dhex mari doonta inaan laba su'aalood iyo wax ka weydiiyo Cabdirashiid Bashiir soo dhawow galabta waxaad kamid tahay dhalinyarada halkan ciyaarta ay ku dhex mari doonto adigoo kamid ah wariyaasha magaalada Garowe bal galabta dareenkiina ku aadan ciyaarta galabta halkan ka dhacaysa bal ka Suweys aad oo mahadsan tahay adiga iyo taageerayaashana waan salaamayaa oo ku mahadsantiin safarka halka oo ku timaadeen oo ku faraxsanahay galabta inaan halkan imaano Dangoroyo degmo qadiimi ah halkan dhawaan waxa laga daafuray garoon roog ah oo kubadda cagta ah dhalinyarada degmada iyo maamulayaashana waa uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta iyo qaabilaadda ay noo sameeyeen dabcan waa ku faraxsanahay in garoonkan la furo horumarka dalka ay qayb ka tahay dhalinyarada wariyaashan waan ka mid ka galabta halkan ku ciyaaray inkastoo anagu aanan ciyaareen oo galabta aan jeclaan lahaa inaan fanaanada qobo halkan aan ku ciyaaray laakiin nasiibkuusa ii saamixin sabab caafimaad awgood laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah maya rug baan wariye gaaray marka waxa la yiri ilaa qalin lagu sameeyo maxay kubadda ciyaar kadib marka alxamdulillah waxaan rajaynayaa insha Allah hadii aad moodo gar labana kama qosliso dhalinyaraduna waa isla dhalinyaradii kaliya ciyaarta waxa loogu talagalay isdhexgal bulsho iyo in dhalinyarada wariyaasha ah iyo dadka in la tuso dadku inuu dhalinyarada isdhexgali ka dhaho waxaan filayaa dad badan reer Garowe ah inay halkaan imaadaan oo ciyaartan garoonkan lagu casuumi doono iyaguna ay ka ciyaari doonaan insha Allah sharaaco yaasi sharaaco soo dhawow waxaad kamid tahay dhalinyarada halkan galabta wariyaasha halkan ciyaarta ku dhex mari doonto dhalinyarada maxay ahayd degmada Dangoroyo bal dareenkaaga ku aad galabta maxaad is leedahay ma waxa is leedahay jilaafa la idin dhigi doona mise idinka u dhigi doona waa mahadsantahay Suweys aad oo mahadsantahay runtii waa u mahadcelinaa marka koowaad dadweynaha ku nool Dangoroyo iyo saaxiibka Cabshakuur oo maanta namarti galiyay annagoo wariyaal ah baan ka niri Garowe waxaan rabnaa inaan kulan isdhexgal ah la yeelano dhalinyarada ku nool degmada Dangoroyo ka tirsan gobolka Nugaal runtii galabta waxa la yiri ciyaartu saddex nooc bay noqotaa mar adaa badiyaa mar waa laga badiyaa marna barbar dhac bay noqotaa saddexda waa rajaynaa laakiin waxaan ka jecelnahay inaan galabta badin doono Maxamed Xasan Dholo soo dhawow ku soo dhawow channelka Suweys ka cayte bal halkan galabta ciyaarta dhex mari doonta wariyaasha qaar kamid ah degmada Garowe iyo degmada Dangoroyo maxaa dareenkaaga dhihi lahayd waa mahadsantahay markooda ku mahadcelinayaa Suweys iyo channelkaagaba in badan baan meelahaas ka daawaday laakiin waa ku faraxsanahay markii koowaad inaad iga qaadisid waraysi ciyaarta galabta horta anu raga aad kubadda u taageero ama falanqeeya kama midihi laakiin rag culus baa wariyaasha u safan degmada aan joognana rag kale to culus markaan leeyahay waxa weeye laacibiina yaa safan marka waxaan eegi doonaa natiijada laakiin maadaama aan horay u daawan labada midna ciyaartood aan daawan ma saadaalin karo waayahay maxamed si warbaahinta sida uga dhex muuqatid oo runtii aad uga tahay hormuud soo iyadana ma qurux badna dhinaca ciyaaraha iyadana inaad hormuud ka noqotid oo wariyaasha u hogaamisid waan ciyaaraa kubadda oo waa ordaa laakiin laacib miihi aadna uma daawado oo markii horena maan ahayn dadka isboortiga aad u daawada marka laakiin inaan ciyaaro bal intaan xiiqaayo inaan orordo hadee nin cad saaran yahayna miihiyo waa ordi karaa intaan doono inaan ciyaaro waan jeclahay galabtana waa ciyaari doonaa Suweysay markaan kubadda ka soo baxona waxaan dareenayaa insha Allah taala inaan mar bal dareenkayga aan kula wadaago Maxamed Saalax soo dhawow maanta safar baan ku soo jirnay waa isla soconay hadda guntiga gabagabadii waxaan soo gaarnay Dangoroyo halkaana galabta ciyaar baa ka dhacaysa ciyaartaas waxay u dhaxaysaa wariyaasha qaar kamid ah wariyaasha degmada Garowe iyo degmada maxay ahayd Dangoroyo bal galabta ciyaarta maxaa rajaynaysaa iyo waliba safarkeeni aad u mahadsan tahay Suweysay waa ku faraxsanahay inaan Dangoroyo imaado oo maanta saacado badan joogno dhowr jeer waa u yimi shaqo laakiin inta maanta joognay cabaar xataa inaan ku nasanay
waqti fiican bay ahayd galabtana halkana ciyaar xiise leh ay ka dhacaysaa oo raggu isku arkayo way ka fiican tahay ciyaarta banaanka loogu baxo mataqaanaa halka loogu soo galo laakiin ani siday dadku ii arkaanba ma ogtahay aniga isaga jooga shaakadayda waxay u muuqataa inaan hadda ciyaarayn sababtoo ah boos baa lay diiday waxa la yidhi waa buuxdaa bahasho mataqaanaa adigu waxa ka noqotaa albitra ka noqo isdii kara waad cuslaatay ma cuslaane waa dadku anaa ugu yar dadka meesha jooga ugu fudude xataa adiga ka fudude laakiin si dhisirta waxaa hadda ma wada fuulo sharmaarka soo dhawow waxa ka mid tahay dhalinyaradan garow ka wada nimo ee wariyaasha ay halkan ciyaartu ku dhex marayso dhalinyarada degmada Dangorayo bal dareenkaaga ku aadan ciyaarta wallahi aad aan u faraxsanahay wali ciyaartu ma bilaaban laakiin waxaan rajeynayaa inaan Dangorayo ka wariyaal ahaan anigu waliba mas'uuliyad gaar ah saaran tahay oo kabtanka gobolka Nugaal xulka wariyaasha waxaan rajeynayaa inaan kala baxno Dangorayo maanta xagan guul baan rajeynayaa wali waxaan rabaa inaan dadka Dangorayo ay yiraahdaan kulamo dambe oo mataqaanaa codsiya in ay dalbadaan macdaraha ka dhigno xagan saan rajeynaya inta badan wariyaal way wax dheeray waxaan wariye ahayn ciyaarta ma safana marka waxaan rabnaa inaan muujino amba sameeyno kooxo wariyaal ah oo kubadda dheeraa waxaan oo barteen dadku warar tabin iyo mataqaanaa laakiin haddeer waa wariyaashii oo jimacsanaya kubadda qaadanaya waliba maalintooda nasitaanka jimcaha dheelaya kulamo isdhaxgala waliba waxaan ugu dan leenahay inaan magaalooyin badan aan tagno si aan u badino isdhaxgalka bulshada iyo wariyaasha waliba qayb weyn ka qaadan doontaan wariyaasha hatta waxaan rabnaa inaan la dheelo kulamo dambe wariyaal badan qardho gaalkacyo meel badan inaan tagno boosaaso insha Allah hadii aan lidmo Axmed waxaan kugu soo dhaweynayaa channelka Suez Kacayte ee waxa ka mid tahay dhalinyarada deegaanka ee galabta halkan kula ciyaaraysa wariyaasha degmada Garowe bal dareenkaaga ciyaarta ku aadan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Axmed Cabdullaahi Maxamuud aad baan u faraxsanahay galabta maadaama aan ku soo dhaweynno degmada Dangorayo koox ka socota ee saxafiyiinta gobolka Nugaal waxaan u hambaleynaynaa waxaan u soo dhaweynaa si wanaagsan maadaama ay ciyaar wanaagsan oo fiican inay dhex mari doonto waxaan ku soo dhaweynaa garoonka ciyaaraha ee Dema Fitness oo ku yaala degmada Dangorayo aad bay darankii galabta u kacsan maadaama saxafiyiintu noo yimaadeen iyagoo matalaya sportka gobolka Nugaal farx yabani soo dhawow galabta waxaad ka mid tahay dhalinyarada halkan ku ciyaaraysa dareenkaaga ka waran Suusi waad mahadsantahay adiga iyo channelkaagaba oo idinkaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad ilaa iyo maantaba muuqaalada kala duwan iyo sawiradaba aad dhankeeda qayb libaax leh uga qaadanayseen anagoo matalayna warbaahinta magaalada Garowe ayaan halkan oo magaalada Dangorayo oo ka tirsan gobolka Nugaal waxaan kula leenahay dhalinyarada magaaladan oo aan casuumaad horey uga helnay محمد soo dhawo waxaan ku soo dhaweynayaa channelka Suez Kacayte bal dareenkaaga ku aadan ciyaartan bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii waxaan dheelnaa kubad qurux badan nasiib darro waana la ka badi sidaas ay tahay waxaan ku qanacsanahay natiijada aan kala kulannay garoonka annagoo kubadda saddex u dheelanay barbaro iyo inaan badino in la ka badiyo alxamdulillah si ma hadlay noogu soo dhamaatay ilaahay ma aska marka kulanka dambe waa inaa karbaashtaa kulanka dambe insha Allah soo adkeenayna maxamuud soo dhawo waxa ku soo dhawaataa channelka Suez Kacayte bal dareenkaaga ku aadan ciyaarta galabta halkan idinku dhex martay idinka iyo dhalinyarada degmadahan Suez aad baan ugu dhawahay channelkaaga oo kugu bogaadinayaa barnaamijyada arrimaha bulshada ah ee aad markaas barnaamijka soo sideysid aad baan ugu mahadcelinayaa horta guud ahaan dhalinyaradii iyo markaana guddigana soo dhaweeyay Dangorayo nagu soo dhaweeyay maanta galabta kubad fiican baa ciyaarnay oo aan buuq lahayn oo lahayn natiijad lahayn adigu guul iyo guul daraba kubadda waxa ka sharaf badneed ama ka qurux badneed qaabka loo ciyaaray
si dhalinyaradu wada ciyaarayeen aad baan ugu mahadcelinaynaa reer Dangorayo dhalinyarada in la ciyaartay cabdishakuur maxamed faarax waxaan kuu soo dhaweynayaa channelka Suwayska Cayte ee waxaad ahayd qabanqaabadii inay ciyaartu halkan galabta ka dhacdo suurta galiyay alle ka sokow garoonkan daymo bal warbixin naga sii Suways walaal waad salaaman tahay adiga iyo dhalinyarada kale ee kula socota kaamiramanadaada waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum taa markaan ka soo gudbo aniga waxaan ahay cabdishakuur maxamed faarax agaasimaha Demo Commercial and Construction Company Dangorayo garoonkan dhalinyarada degmada Dangorayo ayaa waxay naga weydiisatay codsi maadaama aysan degmadu aysan lahayn garoon roog ah oo baahiyo badan maaragtay oo kale oo jiraan bay waxay noo soo gudbistadeen garoonkan maadaama aanu fiirinay ka sharci ahaan uu xalaal ku yahay in maaragtay kubadda dhalinyarada maaragtay loo qabto waqtigeena aysan kaga tagin oo ay kaga harayaan waxyaabo badan oo amniga ka qayb qaadanayo bilicda ka qayb qaadanayo oo dhalinyaradii muqaadaraadkii inay ka hadho oo ka qayb qaadanayo waxaanu door bidnay in aanu aqbalno codsigii dhalinyarada nooga yimi bishii September taa markaan ka soo gudbo hadda alxamdulilaahi rabbil caalamiin galabtay oo jimcaheedii kale baa wasiirka ciyaaraha Puntland garoonkan uu xariga ka jaray intii ka dambeysana garoonku uu shaqeynayay galabtana alxamdulilaahi rabbil caalamiin waad aragtaayo koox wariyaal ah oo ka yimi caasimadda Garowe iyo dhalinyarada degmada Dangorayo baa waxay ku wada ciyaarayeen garoonka Demo Fitness walow kaana aan dareemayo in maaragtay annaga galabteena la ka goolsitay laakiin insha Allah dib baanu ka rajayn doonaa inaanu iska giijino taa markaan ka soo gudbo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyaradii saxaafadda ahayd oo ila soo xiriirtay oo iga aqbashay inay igu yimaadaan degmada aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa marka waad iyo mar labaad taa markaan ka soo gudbo dhalinyarada kale oo hadda gobolka noo yimi kuwa qardho ama meelaha kan kalena waxaan leenahay imaado oo degmada imaado oo maaragtay arka oo degmadu degmada dalxiis ku wacan weeyahay imaado degmadiina xiliyada jaaniska aad leedihiin